وبرنامجكي قلبنمو مانتنا وأربعو تاريخنا وحا أي كوبيغتاي كوبية طبان كمارسو لبا كل حيا لباتن هذا برنامجكينا oo gabi ahaantii aynu ku soo qaadan doono wararkii ugu dambeeyay dagaalka qaraar ee ka socda bariga dhexe waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Iran ay goordhow soo gabagabaysay weeraro dhinaca gantaalaha iyo droniska oo ay ugu magac dartay dufcadii 39aad ee ay weeraraysay tan iyo markii dagaalku halka ka bilowday dufcadda 39aad ayaa waxaa la sheegay inay ahayd weerarkii hadda dhamaaday waxaana la isticmaalay gantaalo culus iyo waliba diyaarado drones haddaba markaan idin soo telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran goordhow waxay sheegeen inay fuliyeen mawjadii weerarada 39aad howlgalka loogu magac daray amaliyatu al-wa'd as-sadiq haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay ku beegsadeen weerarada saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka haddaba warbixinada ku saabsan weerarkaas uu sii socday waxa la leeyahay qaraxyo culculus ayaa waxa laga maqlay iyana goordhoweyd magaalada Tel Aviv meesha la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra wariyaasha ku sugan halkaas ayaa soo sheegaya in qaraxyo aad u daran laga maqlay mandiqada la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra way marka wali tafaasiil badan horta laga ma helo waxa arkaysan gantaala ah oo loo sii wado halkaas qaar waa qabanay qaar waa baxsadeen ilaa baxsadeen xagee aadeen marka waxaa jira waxyaabo ku saabsan in aad loo ilaalinayo oo wararka inay ka baxaan la diidayo Israa'iil marka weerarada way socdaan dufcad waa numberse ku socdaan waa ogeydeen numberadaas lagu socdo 39 marina marka dambe soo laabano 40 iyo dhowr iyo 40 iyadoo la marayo weerarada waa arkaysaa numberse li sababta marka numberka loogu sameeyay waxa waay mar walba waxay ku celiyaan Mareykanka iyo Israa'iil inay ka takhaluseen inta badan gantaalihii meelihii laga soo ridayay Iran oo ay baabiyeen laakiin meesha waxa leeyahay wax baaba'ay ma leh silsilada iyo nidaamka iyo qorshihii weerarka saan u wadanay ayay u socdaan marka silsiladaas habeenkiina qayb baxda maalinkiina qayb inkastoo joogto culus habeenkii ay tahay ma aqaan markay yahuudda hurdaan ay nimankan dhagaha ka garaacaan marka hawshaas halkaas ay maraysaa dhanka kale weeraradii goordhow soo gabagaboobay dufcadii 39aad waxaa sidoo kale lagu weeraray Sacuudiga iyo Qatar iyo Kuwait iyo Imaaraadka marka meelaha ugu daran dhibaatadu ay soo gaartay ilaa hadda la soo tabinayo waxa leeyahay airportka magaalada Dubai ayaa waxaa ku dhacay weeraradaasi qaar kamid ah ayaa la beegsaday Imaaraadku goordhow waxay sheegeen 4 qof inay maaratay kaga dhaawacantay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray weerarada Iran ee goordhow soo gabagaboobay waxa la beegsaday khaliijka waxaana la sheegay inay dad ku dhaawacmeen kadib markii diyaarado drone ah ay ku dhaceen airportka magaalada Dubai waxa soo kale weeraradu ay saameyn ku yeesheen meelo kala duwan oo ka tirsan khaliijka sida Sacuudiga Qatar iyo waliba Kuwait inay markaa weeraradu saameyn xoog leh ku yeesheen way marka weeraradaas dhankan iyo dhankanba waa loo isticmaalayaa saldhigyada Mareykanka ee halkan ku yaala iyo danaha Mareykanka ee khaliijka ku yaala waa la garaacayaa iyo halkan marka airportka maxaa loo garaacaa leeyahay airportada waxa la inta badan Mareykanka way joogaan qaar ay saldhigyo ku leeyihiin qaar ay maaratay muwaadiniintoodii daaburayaan oo maaratay waxba socda marka waxyaabahaas oo kale ayaa loo beegsanaa marka warbaahinta Israa'iil ayaa iyaduna war ka soo saartay xaaladda weeraradan isdabajooga kuwii xalay cuslaa ee dhacay kuwii saakay dhacay kuwii hadda dhacay waxa leeyahay 24 saac ee la soo dhaafay weerar ma ahayn waxa nagu dhacay weerar dhaafay jug culus kaliya socotay waxa qoraya
joornaaladii Israa'iil haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Israa'iil Huyum joornaalka la yiraahdo wuxuu sheegay inay ziyaadeen oo ay kordheen weerarada sawaariikhda ee Iiraan ee lagu soo riday Israa'iil haddaba joornaalka la yiraahdo Israa'iil Huyum wuxuu sheegay inay saro u kaceen weerarada lala beegsaday Israa'iil ee ka imaanayay dhanka Iiraan 24 saac ee la soo dhaafay waxaana dhanka kale la sheegay in siiriga digniinta uu meel kasta isqabsaday haday tahay jaliilka dhanka galbeed dhanka waqooyi Israa'iil iyadoo sidoo kalena ay barbar socdeen gantaalaha diyaarado daroonis ah oo markaa iyaguna soo galay meelo kala duwan oo kamid ah Israa'iil marka hawsha marka maxay leeyihiin joornaalka 24 saac ee la soo dhaafay kadeeda aragnay weeraradii ugu cuslaana soo maray waxay xalay aan ka hadlaynay barnaamijkii saaka ku soo qaadanay waay sheekadu way isku xirantahay way socotaa marka ilaa hadda ay soo gabagaboobeen u fiirso 39 dufcadii 39 hadday ahayd hadda lagu garaacay dhanka kale Iiraan iyaduna weeraro culus ayaa lagu qaaday oo la beegsaday sida Iiraan ay sheegtay xarumaha dadka rayidka iyo goobaha maaragtay adeega bulshada ayaa la weeraray leedahay marka arintaas waxay furaysaa leedahay wada cusub ee noo furaysaa dadka rayidka iyo meelaha caadiga hadaad weerartaan annaguna waa weerarayna ogaadama weerari kartay yaa dhihi karaan halkaan alaabta jugta culus wad marka sheekadu marka labada dhinacba marka waa la iskaraacaya al-umum soo koob Iiraanna waa la weerarayaa iyaduna waxbay weeraraysaa sheekada wali way socotaa cid gacan taagtay ma jirto cid xaalku waa nagu xun yahay le male jugta la isku haya ilaahuna mooti waay marka hawshaas halkaas ee mare dhanka kale waxaan u soo noqonaynaa wararka ka imanaya Hormuz marinbiyoodkan waa midku ku hanjabay ninkii Trump uu lahaa miinooyinka waa inaa ka saartaan haddii kale midaan idinku dhigo markaba aan soo marsiinayaa meesha hatta waraa soo dhacay leeyahay 3 markaba jugta laga geliyay waxay diideen oo xoogaa iska dhaga tireen inay dhageystaan Iiraan ay soo dhawaanin halka ka bax meel u dhow marayna meel u dhow ma maray soo mar jugta laga geliyay laakiin dooda soo baxday waxa leeyahay mid Cumaan agteeda jooga iyo mid Imaaraadka agtiisa jooga ku jira laba markab oo aan Hormuz u soo dhaweyn ay Iiraan jugta ka gelisay midkii Hormuz u soo dhawaa waa gooni laakiin labada kale maxay ka rabtaa bilaabataan marka labada kale waxa leeyahay ayuu halkaan u soo socdeen marka waa loo sheegay marka way isdhaga tireen marka Mareykanka iska kaana ciliyeen waa soo mar waa kaas marka hawshaas halkaas maray hadaba wararkii ugu dambeeyay hadaan idin tuso wakaalada wararka ee Turkiga ayaa goor dhaweed waxay qortay warbixin ay leedahay maraakiib ayaa la garaacay 3 midkood waxa uu ku sugnaa meesha la yiraahdo Hormuz kadib markii madaafiic lagu garaacay haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan way sii socotay waxa leeyahay 3 markab ayaa arbacada maanta weeraro gantaalaha lagu qaaday iyagoo maraya marinbiyoodka meel ku dhow Hormuz haddaba Iiraan waxay sheegtay inay xirtay halkaas oo markaa sababta ay u xirtayna ay tahay weerarada cadawtinimo ee Mareykanka Israa'iil ay ku soo qaadayaan waxayna sheegtay markab iyadoo aanay ogolayn inay halkaa uusan mari karin uusan ka gudbi karin haddaba hay'adda u qaabilsan dawladda Ingiriiska dhanka arrimaha badaha waxay sheegtay in la soo gaarsiiyay 3 markab cabashadooda oo sheegaya in weeraro lagu soo qaaday oo la soo weeraray iyagoo ku sugan meel ku dhow Imaaraadka qaar midna uu ku sugan yahay dhanka iyo Cumaan midna uu ku dhawaa marinbiyoodka Hormuz marka Iiraan marka gabi ahaanba ma xirtay meeshaas wax maray male miya maya wax waa marayaan laakiin wixii Iiraan ay rabto kaliya maray waxay ugu talagashay Chinese-ka iyo Ruushka iyo shirkadahooda iyo waxaan meelahan maaragtay inay mari karaan iyo dawladaha saaxiibka la cid kale oo meesha mari karta ma jirto
cid aynaan annagu amarkeena ku shaqaynayn oo mar joog meesha hadday isku soo marto iyadaa ka mas-uula leey. haddaba iiraan marka waray soo saartay isla maanta ku saabsan arrinkaas, ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen markab kasta oo doonaya inuu maro Hormuz inay waajib tahay inuu helo ogolaanshiyaha Iiraan. taliyaha ciidamada badda ilaalada kacaanka Iiraan waxa uu sheegay markab kasta oo doonaya inuu maro Hormuz waa in Iiraan ogolaanshiyaheeda uu helaa. haddaba maraakiibtan maanta la weeraray waxay iska dhaga tireenaan leeyahay inay markaa dhageystaan digniinaha ka imaanaya halkaas. hawshaas marka halkaasay maraysaa. iiraan marka meesha maxay ka haysaa? waataan xalay uu ninkii isaaki barnaamijkii aan kusoo qaadanay Trump ahaa qaylinaya uu lahaa ka bixiya meesha, waa maxay geliyeen marka meesha. haddaba warbaahinta Mareykanka waxay ka hadlayaan in Iiraan mar horeba ilaa 10 meelood ay miino gelisay, 10 qaybood oo Hormuz ay miino gelisay. haddaba marka aan aragno wararkii ugu dambeeyay, mas-uul Mareykan ayaa wuxuu sheegay Iiraan inay gelisay 10 miino ah meesha la yiraahdo Hormuz. joornaalka la yiraahdo Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin Mareykan waxay cadeeyeen inay ogaadeen in Iiraan durbaba ay halkaa miinaysay oo ay ku aastay 10 miinooyin ah oo markaa iyadu ay garanayso halka ay miinooyinka ku jiraan. 10 meel ayay miinaysay, meelana miinada ma leh. markabkii ay rabto inuu maro masaafada halkaa u siko xagasha halkaas mar alle meeshaas saas u soo laabo halkaan mar midkii qalad u soo maro xoogaa ku maraa dhaada. hadda waxaa la gaadooyaa nimankii Mareykanka xoogaa ku maraynaa dhahay soo maraa leeri miinooyinkaas alaabtaasaa lagu sugaa. marka sheekadu halkaasay mareen. markaan idin tuso qariidada Hormuz meeshan laysku haysto maristeeda. haddaba sidaad arkaysaan qariidada dhulka jaalaha, qaybta jaalaha oo dhan waa Iiraan. meesha ayar calaamada guduuda ah leena waxa waaye street waxa la yiraahdaa meesha marinbiyoodka Hormuz ayaa la yiraahdaa. marinbiyoodka Hormuz waa meeshaas oo markab kasta inuu maro ay tahay. marka baddaas gudaha ku jirta waxay u dhaxaysaa Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Imaaraadka, waxaasoo dhan gudaha ku jiraan. marka maraakiibta halkaa soo maraysa shidaal ha wado, gaas ha wado, badeeco kale ha wado ama halkaa u socota waa inay ka gudbaan meeshan Iiraan ay fadhiso oo la yiraahdo Hormuz. marka qaybtan dhan dhulkan weyn ee jaalaha waa dhulka Iiraan. wuxuu la eg yahay dhulkan khaliijka ay ku fadhiyaan oo dhan uu la eg yahay, uu ka weyn yahay. Iiraan marka iyadu badda geeska gees way fadhidaa. marka meeshaas waxaysan iyadu raalli ka ahayn halkaa kama gudbi karaan ayaa la leeyahay oo xaalku halkaas ayuu joogaa ayaa la leeyahay. waaye marka dhankaas waa dhankii dagaalada iyo wixii socday waaye. waan ma jirtaa marka wax wada hadala. Erdogan wuxuu ku baaqay maanta in maaragtay dagaalkan intaanu faraha ka sii bixin in hadda la joojiyo oo wada hadal miiska la isugu yimaado. laakiin ma la dhagaysanaa Trump iyo Netanyahu iyo sheekadii ay rabeen maadaama ay shaqayn weyso ma ogolaan doonaan lama yaqaano. marka hawshaas Trump waxaa soo jeediyay Erdogan hadiiba la maqlayo. dhanka kale qosol waxa uu dilay Shiinaha war soo saaray. waataan barnaamijkii saaka Imaaraadku ay u dacwoodeen Shiinaha waxay yiraahdeen gardarrada Iiraan ay nagu hayso naga qabo. marka Shiinuhu marka wuxuu rabaa inuu nimankan khaliijkan madaxa u salaaxo. Iiraan oo ay saaxiibo yihiinna uusan ku digan oo adna waxa nagta ka gelinaysa nagta ka gelino. marka qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu ay soo saartay ayaa wuxuu ahaa qoraal qosol leh oo aad loola yaabay. haddaba markaan tuso telefishinka Al Jazeera ayaa soo qaatay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. waxay sheegtay Shiinuhu inay tahay waajib in la ixtiraamo
qarannimada dhammaan dowladaha ku yaala gobolka bariga dhexe marka waxay leedahay waa in la ixtiraamaa siyaadada ama qarannimada dhammaan dowladaha gobolka bariga dhexe amnigooda iyo nabadgelyadooda dhuleed waa in la ilaaliyaa qaybta dambe waxay leedahay waxaan si kulul u cambaareynaa weerarada lala beegsanayo weerarada aan ahayn saldhigyada military ee lala beegsanayo dadka rayidka ah marka shiinuhu marka muxuu sheegay aniga waxaan rabaa mogtahay inaan isla fiirino shiinaha hadalka nimankan shiinayska niman caadi ma waxay yidhaahdeen waxaanu annagu kasoo horjeednaa wax kasta oo wax u dhimaya qarannimada iyo nabadgelyada dhuleed ee dalalka ku yaala gobolka iiraanna jugta lagu hayo waa laga gardaran yahay iyaduna macnaha way ku jirtaa dadka uu maaragtay kasoo horjeeda dhibaatada lagu hayo kuwan khaliijkana waa ku jiraan labadaba marka xoogaa way seexanayaan qodobkaas qodobka labaadna wuxuu leeyahay qodobka oo la yaab kale waaye waxaynu cambaareynaa dhammaan weerarada lagu qaadayo goobaha rayidka ah oo aan ahayn dhanka militariga meelaha militariga ah marka imaaraad meel askar maraykan joogto ayay iiraan soo weerartay ma cambaareynayo dhahay laakiin meelaha qaladka rayidka iyo meelaha dejuan waa cambaareynayaan marka arrintaasuu marka nimankii shiinaha marka waxay leeyihiin imaaraadka iyo dhulkooda maba la weerari karo khaliijka ma dhahayaan waxay leeyihiin waxaan cambaareynaa meelaha militariga aan ahayn militariga iscayrsanaya inay nagta iska geliyaan waa rabnaa laakiin meelaha rayidka aan cambaareynaa laakiin meelaha militariga jugta laga geliyo meelaha militariga marka ayaga marka maxay rabeen gantaalahan waxaan iiraan naga joojiyay inay yiraahdaan iiraan waxay leedahay meesha Mareykanka jooga dhibaatuna nagu yahay marka halkaas ay marka xaajadu baraysaa haddaba weeshay ku dhamaataan arkaynaa ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inagoo mar walba idiin soo gudbina macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen haddaad nagu cusub tahay subscribe ku samayso youtube-ka si aad noogu soo biirto barnaamijyadana aad u hesho follow garay Facebook-gana si aad adna barnaamijyada noogala qayb